aniga hadda meesha kuma ogi wadana gudoomiye saddex markii loo qaybiyo hal meel ayaa ka nool qolihii wasiirada ee aan halkaan meel fagaara aan ku ansixinay inta kale waxa waaye qaar guddiga joogtada ah dhaariyay kuwa ugu nasiibka badan waa kuwa maanta horta in lagu dheeriyo oo aan waliba kalsooni loo weydiin waxaan rabnaa dalka kan magaalada tan emergency ay ku jirtaa gudoomiyihiisu meel cadbo emergency ay ku jirto oo ku sheegay emergency dalkan waxaa gelin karo baarlamaanka federaalka ah kadib markii madaxweynaha soo codsado baarlamaanka soo galaa wadana gudoomiye joornaal maanta aan akhrinayay xildhibaanada ka mid ah la qaybsaday waxaa ku qoray Donald Trump uu yiri dalka Soomaaliya ilaa bisha Abriil emergency aan geliyay waa ku sii jireynaa Donald Trump waxa emergency la geliyay joornaalada halaga fiiriyo website-ka oo www.whitehouse.com halaga fiiriyo nasiib darro weyn waaye annaga qaran jira oo xushmad leh oo qadarin leh ayaan nahay Mareykan mid jooga oo madaxweyne Mareykanka ah annaga emergency lama gelin karo yaa laga rabaa in isbeeni madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya baarlamaanka federaalka aan asu igmaday shaqadan oo aan u dooranay oo ah madaxweynihii aan dooranay sidaayna annaga laba qof aan dooranay guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynuhu dalkan dhibaatada ka dhacay Mareykan uu sheeganayo inuu asaga emergency geliyay shacabkiisa ay olayaan maxaa diiday intuu statementkiisa iyo dad shacabka la hadlo ee waxa dhacayo oo beeriyo qaarna uu rumeeyo waxa diiday oo la aamusay maxay mashibta ummadda Soomaaliyeed waxa ku maya anigu waxa soo dhaqalad jira ayaan u arkaa wadana gudoomiye waxa xaqiiq ah qofka la doortay waxa laga rabaa inuu hadlo in shacabku waxa jira uu sheego in meesha loo socdo uu sheego madaxweynuhu waa inuu hadlaa adiga gudoomiyaha waa inuu hadashaa oo aad boonansiga aan ku dhaqmay iyo sharciyada aan ku dhaqmayna aad noo sheegtid waxa tiri guddiga muxuu ahay arrimaha gaashaandhigga iyo amniga iyo markii laga hadlaayo saxaafadda banaankan u saaraynahay gudoomiye waa inay xildhibaano soo codsadaan haddii adiga ay ka timidna aad noo sheegtaa sababta ay kaaga timid waxa weeye saxaafaddu waxay ka wax tahay shacabka Soomaaliyeed lagihiisa iyo indhihiisa shacabka Soomaaliyeed haddii madaxweynihii ka aamusay haddaan annaga saxaafadda nagala cayriyo aan la hadli karin shacabka Soomaaliyeed intay wax ka maqlaayaan wadana gudoomiye adoo mahadsan dalka Suudaan rooti qaali ayuu madaxweynihiisa awoodda badnaa oo ku waayay kii labaad oo asaga bedelay 30 saacadood soo hayno xilka ku waayay shacabka haddaan lala hadlin kacdoon baa dhacay aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum